Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan. Waxaan analyze waxaan kusoo binaynaa Bitcoin directionkiisa, structure-ka uu sameeyey iyo qaabka uu socdo iyo meesha uu jihada u aadi doono. Sidaan wada ogsoonahay lacagaha dhammaan meme coinska iyo lacagaha altcoinska waxaa jiheeya ama hogaamiya ama hormuud u ah Bitcoin. Bitcoin haddii dhaqaaqdo iyagana way dhaqaaqaan, haddii Bitcoin dhacdana iyagana way dhacaan. Marka si aan u ogaano in coinska yariiska inagu aan haysano jihaday aadi doonaan waxaa maamuli doona Bitcoin isla fiirineynaa structure-kii uu sameeyey, qaabkii uu sameeyey inaga oo aan kaashanayno structure-kaas oo boqolkiiba 80 ilaa 90 inoo sheegi doono jihada uu Bitcoin aadi doono. Hoos ayuu dhici doonaa mise kor ayuu kici doonaa. Sidoo kale analyze-ka waxaa ku dari doonaa lacagaha maxaa loo yaqaano yaryar ama altcoins ama meme coins qaar kamid ah ayaa ku dari doonaa. Sidoo kale waxaan halkan kugu sheega waxay tahay lacagtii Dogecoin la hayay waxay ka gudubtay heerkii meme coin, waxay u gudubtay heer coin caadi ah oo waxay samaysteen blockchain iyaga u gaara oo loo yaqaano Doge blockchain. Iskugu yimaadeen dhammaan wixii Doge's ah ama Doge Wave ama Doge all wixii Doge's halkaas ay iskugu tageen. Marka toos aan u tagnaa hadda shaashadeena trading view-geena aadina waxaan soo furnaynaa Bitcoin USDT ayaa furnaynaa. Waxaan geysanaynaa 1 day time frame. Meeshaas ayaa 1 day time frame geysanaa. Okay. Bitcoin-ka all time high-geedii oo hadda ugu dambeeyay wuxuu ahaa jimcihii 12 November 2021 ayuu ahaa. Kii ku sii xigana wuxuu ahaa hadda ugu dambeeyay asagana last ahaa $73,000 ayuu gaaray. Waa Talaadada 12 Maarso 2024. Marka halkan markaan fiirino double top ayuu ka samaysan lahaa laakiin waa u dhaafay double top. Haddii meeshaan topkan koowaad iyo top labaad uu samay lahaa suuqaas waa double top noqon lahaa, hoos ayuu daadan lahaa marka. Laakiin double top ma uusan samaysanin. Hadda wuxuu noqday shape wuxuu sameeyay U shape lahay. Marka U shape-ka qaab loo design gareeyaa fiirinaa marka geometric shape ka galaysaa. Meeshaas ayaa geometric shape ay galaysaa. Arc shape ayaa dooranay marka point-ii laga soo kacay halkaas oo ahaa point-aad uu taagan yahay halkaas oo waxaa raadinaya marka shape-ka qaabka uu noqonayo ayaad ku raadinaysaa. Hadda arc shape ayaa samaysay meeshaan waxaan banaanka ku baxsan muhiim ma ahan kanba guduhu ku jiraa. Marka arc shape-kan sida caadiga ah wuxuu analyze gareeyaa in suuqan uu kor sii aadi doono ama kor uu aad ugu dhaqaaqi doono. Weliba inuu dhaqaaqayo suuqan wuxuu hadduu arc shape-kan uu vertical lahaa ama toosnaan lahaa oo double top noqon lahaa hoos u dhaqaaqi lahaa sida hore u sharaxay. Laakiin hadda arc shape-kan waa kastoyr waa inclined waaye way kala sareysaa double top ma ahan. Okay. Arc shape-ka waa kana soo ma waxaana geysaa marka 4 hour. Waxyaabaha kale ee sii xaqiijin karo in Bitcoin bull run waali ah la imaan doonto ama kor ay ku sii kici doonto. Qaybtan hadda structure-kan yariiska ah ayaan fiirinaynaa. Trade line ayaa saareynaa. Touch-kii ugu dambeeyay waa kan. Xaggaas ku dhufo. Qaybta hoos dana tag. Lugtaas fiiqa ah. Xaggaas ku dhufo. Okay. Markii aan weyneyno waxaan ka arkaynaa taabashada koowaad, labaad iyo saddexaad ayaan ka arkaynaa. Marka meeshaan waa kow. Marka ku soo taabtay ma inta kow way noqonee soo soco marka inta wax taabtay ma jiro. Intana ma taawanin. Inta marka waa hoos waa koowaad waay. Hoos waa labaad sababtoo ah intuu ka taabtay. Kan markii uu kacay halkaan uu taabtay intuu soo taabtay. Haddana waa uu sii kacay xaggaas ayuu taabtay. Kor labaad waay. Hoos saddexaad waa kana. Kor saddexaadna hadda ku sii socdaa halkaas ku sii socdaa. Oo waa 70 waxay noqonaysaa $70,500 camal ayay tagaysaa. Okay markii inta badan sida la wada ogsoon yahay structure-ka markii uu qaabkan uu sameeyo waxaa loo yaqaanaa flag continuation ayuu sameynaa. Flag continuation kan marka 3 touch ayuu sameeyay. 3 touch-kii marka indicator-kiisa waxaa waaye in suuqan kor u sii socdo.
qaabka uu soconaya marka isla fiirinaynaa. Hadda waxaan haysanaa arc shape haysanaa, sidoo kale flat continuation oo 3 qeybood, qeybta kore iyo qeybta hoose taabtayna waa haysanaa. waxaan aadaynaa marka one day ayaan aadaynaa. waxaan fiirinaynaa marka structure ka sareeya miyaa jiro. structure ka sareeya ma jiro, oo sababtoo ah bitcoin all time high-geedaba hadda ayay maraysaa. sidoo kale waxaa kusii fiirinaya waxyaabaha kuu sii caddeyn karaa indicators fiican ku siin kara. waxaa ka mid ah waxa uu samayn karaa halkan inuu ka sameeyo journal, inuu kasii sameysto haddana kanna laga soo bilaabo, halkan kasoo bilaab kan saan in channelkan lugtan soo jeedi. channelkan lugtiisa waa kanaa, lugta kale waa tan koray taabatay, waa la soo celiyay, wuu ku laabtay meeshiisa, xaggaasaa usoo taabtane. haddana channelkan waxaa ka sabay marka inuu halkaas aado, waa $111,000 inuu gaaro ayaa bitcoin laga cabsi qabaa. laakiin sahal kuma gaarayo oo hal mar bul ma dhahayo 111,000. marka qaababka iyo designkii uu gaari lahaa ayaa hadda sii sahminaynaa aniga marka. okay waxaan kusii sahmin karnaa marka qaabka uu gaari doono. waa sii saadaalinaynaa, waxaan kusii saadaalinaynaa hadda qeybtan hoose structure maxaa u ah. structure kana u noqon karo, kanna wuu u noqon karaa. okay haddii uu suuqan uu hadda soo baxo structure kana u noqonayo, haddii laakiin uu ranjin qaabkaas u socdo structure kana u noqon doono, ama meesha lugta laga soo qaadi doono trade line-ka. okay haddii halkan laga soo qaado sidaas ayuu noqonaa, waa probability waaya. haddii halkaas laga soo qaado qaabkaas uu sameynaa, uu laabanaa, uu soconaa, uu soo laabanaa, markaas ayuu xaggaas tagaa. aysan ahayn trade line san waay, wuu kusoo laabanaa meeshaan, bartaas wuu ku nasanaa. waxaa loo yaqaanaa resistant iyo support ay halkaas noqonaya. marka resistant support waxaa waa 68,500 waay. okay xaggaas uu kusii soconaa marka, suuq iska soconaa ma jiro, saas u sameynaa. marka designkan oo uu sameeyey waxaa structure usii noqonayo kan ayaa usii noqonayo, kanna wuu sii caawinaa oo supportive waaye, oo kan journal kala meesha ka samaysmaayo. marka waxay noqonaysaa marka 112,000 ilaa 111,000 inuu gaaro, waa bitcoin u dhowdahay 100,000 wuu ku dhawaanaa hadda. marka laakiin hore bitcoin 100,000 kama tagaayo, oo 83,000 ilaa 85,000 ayuu tagaa. kadib wuxuu kusoo laabanaa 69,000 ama wuxuu kusoo laabanaa 71,000 ilaa 70,000 kusoo laabanaa. markaas kadib wuxuu kasii dhaqaaqaa marka 112,000. okay ilaa muddo waxay qaadan kartaa Agosto 25-keeda ilaa Agosto 10-keeda dhaqaaq fiican ha jiro. marka bitcoin sida hadda aan arki karna meeshan bullish ayuu noqon doonaa. markii aad fiirisid marka hadda 1 days aan fiirinaynaa, 4 hours aa tagnaa. marka 4 hours waxaa la rabaa structure aad soo bisay oo design aad soo bisay in 1 day-ga iyo 4 hours-ka iyo 1 hours-ka inay waafaqdaan la rabaa, inaysan xadka ka bixin. okay journalkii aan sameeyey marka oo mal abaalka ah oo aan sameeyey, markii loo fiiriyo 1 day iyo markii loo fiiriyo 1 week iyo markii loo fiiriyo 4 hour way is waafaqeen, oo halkan journalkii wuu taabtay, sidoo kale journalkii halkaas wuu taabtay, sidii aan rabnay ayuu yahay. marka waa soo fiiri doonaa next month iyo maalmaha soo socda siduu bitcoin u dhaqaaqo. hadda waa arrin Soomaaliya bitcoin bullish yahay, lacagaha yaraa isla fiirinaa marka iyagana laga yaabo. waxaan soo qaadanaynaa marka Jasmine oo kale, tan waa diyaarinay, waa bobsiinaynaa 4 hour aan joognaa. 4 hour scratch halkaas oo noqday koowaad waa kan, scratch ka hoose waa kana koowaadkiis waay. 2 waa macnaha inta scratchkiis 1 uu yahay, kan scratch 1 uu yahay. kanoo kale waxaa loo yaqaanaa higher loo yaqaanaa. markuu hoos u socdana waxaa loo yaqaanaa qaabkan oo kale lower ayaa loo yaqaanaa, ama hoose kasii hooseeyo. hadda kanoo kale waa higher lower, waadana higher lower, saasaa loo yaqaanaa higher lower. kanna waa lower waay,
qaybta hoose oo kasii hooseeya oo macnaha structure soo ma jeed structure oo pure ayuu sameeyey marka structure-kii wuu ka baxay flat continuation halkan ka sameeyey wuu ka sii baxay haddana flat continuation yariis halkan ka sameeyey wuu ka sii baxay marka Jasmine waxay gaari kartaa 45 ilaa 46 laakiin jihada u socoto oo la sugayo waxaa 49 waay 49 xaggaas ayaa Jasmine u jihaysanaysaa laakiin the road ama direct way Jasmine laga rabo inay aado the right way ama jihada oo structure-ka socoto waxaa waaye 0.05 waaye 0.05 ne xaggaas ayay noqonaysaa ilaa 0.06 structure-ka marka laakiin wuxuu noo cadeynaa in Jasmine 0.62 ay noqonaysaa meesha Bitcoin hadda ka gaarayso 8000 ay soo laabanayso kan hadda marka wuxuu noqonaa wuxuu ku dhacaa 44 ilaa 46 ku dhacaa halkaane oo 49 kadib waa uu soo laabanaa halkaas ilaa iyo 37 36 ama lagu soo laabanaa structure-kaas meesha ku aadan kadib meeshan ku sii baxaa okay sidee marku sii ogaanaynaa marka Jasmine sababta had soo qaatay maxay tahay okay Jasmine all time high-geeda wuxuu yahay $5 waay haddana waxay maraysaa 0.0 ayay maray marka 0.0 price floor-kii laga soo hoos mariyay Jasmine price floor-kii lagu furay waxa uu ahaa 0.14 cent ayuu ahaa price floor-kii lagu furay marka lacagta inta badan markii price floor-kii lagu furay laga hoos mariyo faa'iido badan ayaa laga helaa oo markii la maalgashto laakiin long term ay qaadanaysaa maanta ma birina ma ahan bilna ma ahan waa long term investment waay markii aan dib ugu laabano refresh dheh price action-kiisa wuxuu noqonaa ilaa iyo waxaa la ogaanay inuu noqon doono 49 ilaa 50 inuu gaari doono ama rafaad ku gaarto ama hal luga dheeraysato way gaari waana 0.44 waaye dadka lacagta ugu jirto gadina qofkii haysana wuu gadan karaa wuu geli karaa marka financial advice ma ahan hadaa rabto ikhtiyaarka waa geli kartaa adiga ku taala waxaan arkaynaa marka hadana Pepe muuqaalkan naga dheeraada diidayna Pepe marka asan xagoo ku socdaa jihadiisa Pepe waxaan mar hore ayaan analyze gareynay Pepe soo halkaan maraya analyze qofkii xasuusto muuqaalka waan soo dhigay YouTube-ka halkaan ayuu marayay waxaan analyze gareynay Pepe inuu structure-kan soo taaban doono oo halkaan ay tahayna maxaa la dhihi jiray baagiisa halkaan weli waa la dhaaf meesha aan garan waxay ahayd 0.12123 afar god 10 isla gaarayso waa la dhaaf oo waxa la gaaray afar god 17 senti ala isla dhuruq ala isla gaaray marka sidoo kale hadana Pepe uu analyze gareynaa soo ma jeeda calaamadda mal awaalka oo aan sameeyay way guuleysatay marka Pepe haddana analyze kala ku celinayna refresh kan oo saarayna marka mid cusub ayaad sameeynayna waa marka okay one day markii aad joogtid Pepe structure qurux badan oo la qaadan karo oo ashar badan laga qaadan karo ayuu sameeyay halkan waa ka soo qaadan kartaa structure-kaaga oo sidaas waa dhigi kartaa inay maxaa la jiray si ku waafaqdo structure-kan dhalkaaga oo qaybta hoosena waxa soo dhigin kartaa kan ayaa ka soo dhigin kartaa kana ku qaadan kartaa laba option ku banaan haddii kale waxaa sameyn kartaa inaad hoos dhanka soo tagtid ayaa waxaa sameeyaysaa price action-ka muuqdo oo markaas go'aan laga qaadan karo decision laga qaadan karo la isticmaalay marka price action-ka decision laga qaadan karo waxa waaye channel-kan lugti hoose lugta kore marka price action-kan lugta koowaad ee kore waaye kan hoose muusan taawanin kan marka qiimo ma kugu jiro aad marka ma xisaabtanaysid laakiin price action-ka kan koowaad waaye kan koowaad kan macna taawashadii oo koowaad taawashadii labaad kan marka taawashadii koowaad taawashada labaad kana ku noqonayso kan xisaab ku jirto waa retracement ile waa koowaad mo xaggaas u gaaraa marka okay 0.0 afar ibraad 22 marka 4 hours geeyo maxaa inoo cadeynaya marka inuu halkaas u socdo ama jihadaas uu gaarayo waaya waxaa fiirinaynaa marka structure meeshaan ka samaysmay ama channel descending ah ayaan raadinaynaa channel descending ah waxaa noqonayo kan oo kala noqonayo channel descending ka kan oo kala noqonayo channel descending
touch dheh xaggaas ku dhuf waa taabashada koowaad labaad saddexaad wuu ka baxay kooda u sii socday kow labo laba kan waaye saddex koroo sii aaday marka xaggaas waa marka toobkii waaye oo 4:17 waa la isla gaaraa waa la isla dhaafaa maxaa sii xaqiijinaya waa marka 1 hour gey markii aad 1 hour geysid continuation aa jiro structure oo inuu sii soconayo cadeynayo xaggaas saar kan hoosena meeshaan ka soo bilaabana xaggaas saar marka pepe weli maxaa u dhiman laabasho kale u dhiman kow intuu taabtay labo intuu taabtay soo laabto waa laga yaabaa inuu kasii socdana waa laga yaabaa usan halkaas janal laakiin bul dheer inuu sameeyaa laga yaabaa oo lug dheer soo jiito oo xaggaas soo taabto ilaa iyo 4:10 inuu soo laabto waa laga yaabaa marka wandii ku celi 1 hour ku celi dhammaan waxaa waa is waafaqeen oo structure waxay samaysay oo jiha fiican leh oo pepe ku dhaqaaqi karo marka pepe fursad ayaa ka bannaan oo isagana bullish ah oo jiha kore u aadi karo waxaan ku xijinaynaa marka dogecoin waxaan sheegnay inay ka guurtay structure oo meme coin inay ka guurtay oo u guurtay blockchain caadi inay samaysteen oo loo yaqaano doge blockchain marka doge blockchain markii one day la joogo wuxuuna tusinayaa marka waxaa la jiray dogecoin waxaan tagaynaa one day waxaan fiirinaynaa horizontal ray halkan laga hoos maray xaggaasna waxay noqonaysaa support and resistance kale xaggaas way noqon kartaa support and resistance sababta halkan way ka taabatay xaggaasna way ka taabatay hoosaa loo waday intan hoosaa loo waday waa meel aad u fiican waa tan labaadna waxay noqonaysaa support resistance labaad halkaas oo noqonaa sababta intani waxbaa ku jiro waaya structure-ka marka u baahannahay hadda inaan sameyno 4 hour aan geysanaynaa 4 hour dogecoin wuxuu ahaa downtrend waayadii ugu dambeeyeyba dogecoin wuxuu ku socday downtrend hadduu ka baxay laakiin sidaas ma u qaadan kartaa laakiin usha dheer oo xaggaa taalna waa qaadan kartaa dogecoin lugtiisa koowaad waa kan lugtiisa labaadna waa kana kii korna waa kan kii koro oo labaad oo qanoqolayna waa kana xaggaa marka aadaa loogu ceshtay structure-ka marka muhiim hadda uu sameynaya asiga dogecoin wuxuuna u socdaa 22 senti ilaa 25 senti ayuu ku socdaa wadadii ku aadi lahaa markii one day aad tagtid in halkaas isku laba doono dhanka bidix ayaa ka fiirinaya bidixdaada markii aad fiirisid dogecoin xaggaas waxaa ka jiro suuq oo lagu raftay oo aad lagu raftay ku yaalo haddii meeshaan uu ka baxanay dogecoin oo inta ka baxanay all time higgiisa ugu laabanaa oo ah 34 senti ayuu kor u sii dhaafi doonaa marka dogecoin structure-kiisa waa downtrend ayuu ayadan biska ahaa bullish fiicanna waa uu soo wataa waan laga faa'iideysan karaa marka last but not the least waxaan kusoo gabagabeynaynaa marka waxaan rajeynayaa in aad fahantay in bullish isku diyaari rabo madhow bitcoin ay samaysatay arc shape ama u shape marka u shape-na inta badan waa cadeynaya in suuqa bullish uu ku laaban doono waa mahadsan tahay haddii muuqaalkan aad ka faa'iiday subscribe channel-keena follow me soo dhe waan ku salaamayaa